inaanay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye u bannaanayn inay dalbadaan muddo kordhin isla markaasina laga rabo doorashada xilligeeda inay ku qabtaan. haddii arrintaas ay dhacdana ay sababi karto in maxkamad lala tiigsado madaxweynaha Somaliland. cidda la xukumay koow waa madaxweynaha, iyadoo marka horeba waajibkiisa qaran ay tahay inuu doorashada qabto oo lagu eedeeyay tii horada qaban weyd ayay maxkamad haddana goysay inuu 28ka March aanu dhaafin. marka anagu waxaanu nahay xisbi iyo xukuumad lagu xukumay inaanay maalintaa dhaafin. hadduu madaxweynuhu 28ka qaban waado maxkamad baa la geeyay, waayo wuxuu jabinayaa xeerkii maxkamadda sare ku horiyay. haddaanu xisbi xaakimkii la xukumaynahayna ma oran karo maalintaas laga yeelo, waayo waxa naga raacay dambi maxkamadda sare amarkeedii waan ka hornimay iyadoo maxkamadda sare nagu taagan tahay oo naan anagu dhaqaajin karin. iyagu waa xor, waxay doonaan bay dhihi karaan, wax soo mucaarada xilma saar say doonaan bay wax u dhihi karaan. haddana qaran ahaan maanta waxaynu aragnaa marxaladda taageerada doorashada iyo abaaruhu inay maareyn caqli u baahan tahay. waxaynu u baahannahay saynu arrintaa u maareynaa oo sharcigiina aynu u helnaa xal aynu wax ku xallino. haddii hawsha halkii laga gari lahaa ay noqoto campaign, cid baa dadka naxaysa cid baan ka naxaynin, dee taasi maaha mas-uuliyad siyaasi ah. waxaa la siyaasadda mikrofoonka. arrinta sidii loo maaraynay doorashada iyo abaaraha waxaa loo mari doonaa sifaha sharciga ah. ma aha xaalad siyaasiyiintu gooyn karayso, guurtiidu ma gooyn karto oo kama odhan karto, madaxweynuhu kama odhan karo. maxkamaddii sare ayaa lagu jaray marka hore inuu arrinta meel fog gaadhsiiyo.